booliiska magaalada Larvik ee dalka Norway ayaa baadigoob xoogan iyo dabagalba ku haya laba qofood kuwa oo ku eedeysan in ay dhac toos ah iyo handadaad ka geysteen mid ka mid ah dukaamada dunta lagu iibiyo ee ku yaala magaalada. Booliiska ayaa sheegay in dukaankan lagu dhacay mindi kadib markii ay u soo galeen labadan qofood qofkii kaasada joogay ama meesha lacagta laga bixiyana ay ku qabteen mindi, sidaana ay kaga qaateen lacag gaaraysa 15,000 ilaa 20,000 oo koronka Norwejiga ah. Sidoo kalena waxa ay boolisku sheegeen in raggani ay ka xadeen dukaanka dhowr dun oo ay hore u sii qaateen. Booliiska ayaa sheegay in lagu wargeliyay markii ay dhacdadani dhacday, waxaana ku wargeliyay qofkii shaqaalaha ka ahaa dukaanka kadib markii dhaca loo geystay. Waxayna sheegeen in dhowr roondo ay magaalada jihooyin kala duwan u kala direen si loo soo qabto labadan qof ee tuugada ah ee dhaca ku geystay mindida kana dhacay dukaankan adduun lacageed oo gaaraya 15,000 ilaa 20,000 oo koronka Norwejiga ah iyo dun kale oo fara badan oo ay hore u sii qaateen markii ay dhacooda geysanayeen. Waxaana lagu soo waramayaa inaysan jirin cid dhaawac loo geystay. Qareenka booliiska Kristin Langeberg ayaa ku waramayso in ay hadda dabagal ku hayaan kiiskana uu yahay kiis muhiimad iyo mudnaan gaar ah u leh booliiska, maadaama maalin cad dukaan inta la galay mindi loola soo baxay laguna dhacay looguna handaday qofkii ku sugnaa dukaanka ee shaqaalaha ka ahaa. Waxayna sheegtay in arrintaasi ay khalkhal iyo weliba cabsi gelinayso ganacsatada iyo dukaamada kala duwan ee ku yaala magaalada Larvik ee dalka Norway. Booliiska ayaa waxa ay dadweynaha qaybahooda kala duwan ka codsanayaan cid kasta oo warbixin iyo sidoo kale xog ka haysta labada nin ee dhaca ka geystay dukaankan ay ku soo wargeliyaan. Waxayna sheegeen ilaa iyo hadda in ay ku daba jiraan, inkastoo ay xaqiijiyeen inaysan ilaa iyo hadda soo qaban labadan wiil ee la sheegay in ay mindida ku dhaceen dukaankan ku yaala magaalada Larvik. Booliiska iyo hay'adaha amniga ayaa sheegay in ay soo qaban doonaan cadaaladana horkeeni doonaan. Waxayna intaa ku dareen in amniga iyo xasiloonida magaalada Larvik ay muhiimada koowaad u leedahay, ayna xaqiijinayaan wax khalkhal iyo cabsi ahna aysan hadda magaaladu ka jirin. Halka warka kiisa ugu doorkaran uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.